gudoomiyaha gobolka Sool ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay gudida dhalinyarada ah ee loo xilsaaray diiwaangelinta ardayda dhamaysatay jaamacadaha ee barnaamijka shaqo qaran oo dufcadii labaad qaranku daafuray waxaana uu gudoomiyuhu sheegay in ardayda u soo baxday gobolka Sool tiro ahaan sanadkan tahay 152 qof oo 99 wiilal yihiin 45 gabdho yihiin halka 8 qof ay tahay dadka naafada ah iyadoona maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha January la bilaabay diiwaangelinta barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Sool waxaana diiwaangelintaasi socon doontaa ilaa 25 bishan aan ku guda jirno gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiida ayaa ugu baaqay ardayda inay ka faa'iideystaan barnaamijka shaqo qaran shuruudaha laga rabana buuxiyaan maanta oo ay bishu tahay 15kii bishii koowaad ee 2020 waxaanu bilownay xafiis gobolku bilownay oo sida ka muuqata hablahaas ay qaban doonaan codsiyada iyo araajida iyo sifiyada shaqo qaran ee madaxweynuhu bilaabay runtii oo himiladiisa ahayd waxaa ka faa'iideystay arday fara badan oo Soomaaliya dhanka kooban oo tirada 1500 arday ay gaarayso barnaamij marka wacyigelin halka diraya waxaan u diray bulshada gobolka Sool ku dhaqan meel kasta joogto waxaan leeyahay maanta waxa inoo bilowday qabashadii araajidii codsiyadii iyo sifiyada shaqo qaran maalin kale qof tabi doona oo oran doona maxaa la iga tagay tomorrow waan ognahay doorkii hore wixii ka dhacay tiradii la inagu tala galay meeynin buuxin sanadkan tirada aynu helnay waa 152 qof 99 waa wiilal maanta 45 waa hablo ama 46 8 qofna waa dadka naafada ah lixaadkoodu 66 ay ka maqan yihiin qayb ka mid ah waxaan doonaynaa 152 qof in 10 cisho gudahood lagu fargareeyo oo lagu soo dhameystiro 15 bisha oo maanta ku beegan Arbacada bilaabanaysa waxayna dhamaanaysaa 25 cisho gudahood cidii nasiibkeedu siiyo codsiyada soo xareysata waa la qaban doonaa shuruudaha hadaan idin akhriyo laga rabo dadka waxa weeye waa 6 shuruudood shuruudda koowaad waxa weeye in qofkaasi uu tartamaya imtixaanka barnaamijka shaqo qaran ee codsadaha ah waa inuu soo qortaa arjigaas ama si codsigaas waa inuu ku qoran yahay emailkiisa iyo telefoonkiisaba nuqulka kaarka aqoonsiga muwaadinka Somaliland waa inuu kaarka muwaadinimada Somaliland ee national ID card ka leeyahay ee qaranku leeyahay oo muujinaya qofkaas inuu Somalilander yahay waa inuu kaarkan wato qodobka saxda warqadda caafimaadka codsadaha qofkaasi codsadaha waa inuu caafimaad qabo oo dhakhtarka warqad ka soo qaato inuu caafimaad qabo qofka afraad waxa weeye nuqulka shahaadada jaamacadda oo ay soo tasdiiqsay wasaaradda waxbarashada halka haddaan dib ugu noqdo shahaadada jaamacadda qof walba jaamacad waa iska keeni karaa waana la samaysan karaa waxaan ognahay in voucher ugu badan yahay marka waxaa laga rabaa qof kasta inuu shahaado jaamacadeed oo la aqoonsan yahay uu wato isla markaana wasaaradda waxbarashada soo mariyo oo soo tasdiiqiyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Sool buu tagayaa wasaaradda waxbarashada uu tagayaa waa ku tasdiiqsanaya qofka shanaad waxa weeye cadeyn inaan da'diisu codsaduhu ka weyn 30 sano 30 jir hadduu ka weyn yahay waa iska joogaya qodobka lixaad waxa warqadda dambi la'aanta codsadaha waa inuu si ID-da soo maro warqad dambi la'aan sito lixda qodob baa laga rabaa lixda shuruudood qofkii aan wadani kama qayb galiyo barnaamijkan kamana mid noqonayo 152 qof ee gobolka Sool laga rabo ee shaqo qaran dadweynaha gobolka Sool baan la hadlayaa waxa xafiiska gobolka Sool baa lagu soo xareysanayaa ee xarunta dhexe ee maamulka gobolka Sool ee looga arrimiyo deegaanka waxa diyaar idinku ah runtii dad shaqada u carbisan oo fahankeeda iyo aqoonteeda leh waxaan kaloo mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii u gartay dadka uu xukumo ee madaxweynaha yahay inay hab fudud lagu shaqaaleysiiyo oo ay kaga mid noqdaan shaqaalaha qaranka ee xuquuqda leh habkaas oo aan qofna ku imaan qabiil ama reer ama saaxiib ama cidna liibaan qaran warbaahinta qaranka Somaliland la saacanood